wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda, wasiir ku-xigeenka, xisaabiyaha guud, agaasimayaasha kala duwan, maamulayaasha, mas'uuliyiinta kale, saraakiisha, saxaafadda, dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii farxad bay noo tahay kulan hawleedkii inoo soo bilaabmay shalay oo 2 cisho oo dhammaystiranayno insha Allah aynu ku jirnay. sanadkii 2 jeer baa ayaynu gobolada iyo wasaaraddu ay iskugu yimaadaan isla xisaabtan. halka sida agaasimaha horumarinta shaqaaluhu uu sheegay, wasaaradda qaybaheeda kala duwan madaxda wasaaradda toddobaadkiiba 2 jeer dib u eegis iyo qiimeyn hawl socodsiintooda lagu eego, bishii mar la eego, 3 bilood mar la eego, 6 bilood mar la eego, sanadkiina la eego. yani intaas oo marxaladood oo kala duwan ayaa xarunta guud ee madaxdiina waaxaha iyo mas'uuliyiinta sare ee wasaaradda si joogto ah dabagal, qiimeyn iyo dhiirigelin iyo daba socod loogu sameeyaa. goobaha dakhliyada amba goobaha gobolada ee dakhliyada iyo xisaabaadka guud iyo ciidanka ilaalada cashuuraha oo runtii iyaguna tiirka inagu lamaan ee socodsiinaya shaqada ee fulinta sharciga ah, sanadkii 2 jeer ayaynu iskugu nimaadnaa kulan hawleedyo 2 cisho ilaa 3 cisho socda. ujeedada aynu ka leenahay shalayna waa la taabtay, maantana aad baa looga hadlay, waxa ay tahay in aynu inagu oo is-og haddana in aynu si fagaaro ah isku dul istaagno yoolashii iyo halbeegyada shaqo ee aynu wada dhiganno halka ay mar walba waxay noo marayaan. marka warbixintii shalay aad bixiseen runtii guud ahaan sidii mas'uuliyiintii iga horeysay dhammaantood ay idinka mahad celiyeen, waanu idinka mahad celinaynaa warbixintii wanaagsanayd ee ka salballaadhnayd dakhli iyo kharash keliya, laakiin tiirarka la eegayo la qiimeynayay ay aad uga badnaayeen. warbixintaas waxaanu runtii aanu ku bogaadinaynaa ay ugu horeynayaan mas'uuliyiinta maamulayaasha dakhliyada amba cashuuraha, kastamada, xisaabiyaasha gobolada, taliyayaasha ciidamada ilaalada cashuuraha, shaqaalahooda, howlwadeennadooda kale, cashuur bixiyayaasha gobolada iyo runtii hoggaanka guud ee wasaaradda oo inagu haga socodsiinta guud iyo itijaaha guud ee ay wasaaraddu u socoto. waxa inooga soo baxay warbixintaas xagga dakhliga inaynu 94% aynu gaadhnay yoolkii dakhli ee laynaga doonayay, iyadoo runtii la xusay duruufo dhaqaale oo adduunka oo dhan ka jira iyo xaalado abaareed oo jira iyo xaalado badan oo la taxay ay jiraan. waxaanu idinka mahad celinaynaa inaynu 6 bilood ee hore sida xisaabiyaha guud iyo warbixintiinaba ka muuqatay inaynu 94% gaadhnay yoolka dakhliga, halka kharashka yoolkiisa oo tashiil iyo ilaalin ay ku jirto isagana 88% aynu bixinay kharashaadkii ku qorshaysnaa miisaaniyadda 6 biloodka hore oo ay ku jirto farsamo maamul oo lagu xakamaynayo isku dheelitirka dakhligu siduu u socdo iyo sii deynta miisaaniyadda oo xisaabiyaha guud uu controller guud inoogu yahay. halkaasna intaasaa inooga soo baxday. waxa kale oo qiimeynta inooga soo baxaysay halbeegyadii tirada badnaa ee xafiisyada kala duwan ay soo bandhigayeen inaynu yoolalkii la dhigay 95% in alla dhammaystiray yoolashii kala duwanaaye cashuuraha beriga lagu xisaabinayay, lagu qiimeynayay, kuwii kastamada lagu qiimeynayay iyo howlihii kale ee xisaabaadka guud lagu qiimeynayay ka baxsanaa maamulka kharashka. waxa yoolasha inooga soo baxay aynu 95% ka gaadhnay baahida loo qabo in dib u eegis lagu sameeyo tiirarka yoolka inoo noqonaya gaar ahaan waaxda kastamada oo aynu doonayno dib u eegis inaan ku sameeyno halbeegyada aynu isku qiimeynayno oo gadaal la idinkala soo wadaagi doono
maadaama oo tiirarka intooda badan amba yoolasha intooda badan ay noqdeen kuwa dhaqangal ah oo si caadi oo operation ahaan u socda imika ay noqdeen waxaynu u gudbaynaa marxaladda dib u habeynta kastamada ee ku xigta yoolasheeda xisaabiyaha guud oo runtii isagana aanu ka wada tashanay waxaynu dib u eegis ku samayn doonaa yoolasha shaqo ee xisaabiye guud ee gobol jooga marka laga yimaado maamulka iyo kala socodsiinta dakhliga iyo kharashka halbeegyada kale ee ay tahay xisaabiyaha gobolku in uu magaranaysaa yool ay u noqdaan si waafaqsan sida xafiiska xisaabiyaha guud dib u habeynta guud ee uu wado sidii uu u dhaadhicin lahaa ee heer gobol ay tiirarka yoolkiisa ugu biiri lahaayeen qaybta xisaabaadka guud yacni meelaha waxaa ka mid ah xisaabiyaha guud ee gobol jooga waa mas-uulka ugu sarreeya amba maxay miisaaniyadda fulinteeda maamulaya marka mas-uuliyaddiisu way ka salballaaran tahay dakhli iyo kharash waxaanu kolley ku dadaali doonaa marka miisaaniyadda la ansixiyo in aynu intiina gaar ahaan xisaabiyaha guud ee gobollada inay fariin wanaagsan oo salballaaran oo ujeedooyinka ay miisaaniyaddu ay xambaarsan tahay in ay qaadaan tilmaamaha ay xambaarsan tahay in lagu tababaro ay qaadaan inay noqdaan wakiilka maamulaya miisaaniyad heer gobol ah ay noqdaan oo iskoobkoodu aynu kor usii qaadno sidoo kale mas-uuliyiinta kalena ay xasuusnaadaan fariimaha ay xambaarsan tahay miisaaniyadda sanad walba meelaha dib u habeynta runtii aynu gobollada u baahannahay in laga sii xoojiyo waxaa ka mid ah habraaca shaqo ee kastamadu ay raacaan iyo habraaca shaqo ee waaxda cashuuraha beriga ee gobollada iyo habraaca shaqo ee dakhli xarayn iyo kharash bixin ee xisaabiyaha guud ee gobollada ee loo yaqaano amba the business processka loo yaqaano waxaa naga go-an in dib u eegis guud lagu sameeyo in dib u eegista lagu sameeyo ee meelaha aan micno badan ku soo kordhinayn habraaca shaqada laga saaro meelaha inaga maqan ee micno ku soo kordhinayana lagu soo kordhiyo habraaca dambe ee la isla qaato in la automate gareeyo oo electronic amba nidaam iswada loo bedelo waa qodobada isla markaana aynu bulshada si public ah ula wadaagno oo haddaad xisaabiyaha guud ee gobol hebel haddii aad adeeg uga baahan tahay habraaca adeeg bixinta aad uga baahan tahay xisaabiye guud oo gobol waa sidaa habraaca adeeg bixin ee xafiis cashuure biri aad uga baahan tahay waa sidaa mid kastam haddaad uga baahan tahay waa sidaa inay public ahaato la automate gareeyo ay dhammaystirnaato waa meelaha runtii aynu aadka looga dardaarmayey talooyinkiinana ku jiray dakhli iyo adeeg bixintana aynu kor ugu qaadi karno meelaha kale aan isleeyahay waaxda kastamadu inay dib ugu noqdaan baa ka mid ahayd amba khalad fahan uu jiro shalay warbixinta waxaa ku jiray wakhtiga ay nagu qaadato sii deynta badeecadda 5 minute iyo 10 minute iyo waxaasaynu arkaynay waxaa laga yaabaa taa malaha dee gaari albaab taagan baad wakhti u qabatee maan u malaynayaa laakiin business processka waxaan doonaynay qof cashuuranaya oo custom yimid oo doonaya inuu alaabtiisii bilow ilaa iyo dhammaad inteebay ku qaadataa custom clearance processku wakhtiga uu custom lagaga baxo waa imisa ayaan u jeedinay marka halkaana waxaan doonaynaa kulley fahamkeedana saasaynu u dhigaynaa dibna waan ugu noqonaynaa waayo public haddeen la wadaagno 5 minute baa aniga laygu dhaafaa amba 10 minute baa laygu dhaafaa waa exitka markaad joogteen amba shaqo dhammaatay maxay igaga baxdaaba u ekayd shalay laakiin bilow ilaa iyo dhammaad baynu insha allah qorshayn doonaa taas waxaa kaloo aynu doonaynaa sida in systemyada isku xidhka systemyada imika waxa isku xidhan systemka maamulka kastamada iyo ka cashuuraha beriga iyo ka ifmiska ee maamulka miisaaniyadda iyo ka liisan bixinta ee wasaaradda ganacsiga iyo ka immigrationka oo heer wasaaradeed ah intaas oo system way isku wada xidhan yihiin hadda shaqada immigrationka ku xidhan iyo ka shaqada iyo maxay wixii cashuure beri u baahdaan intaas xog wadaag electronic bay leeyihiin waxaynu u baahannahay goobaha marka la joogo dibadda
inaynu systemyada kale ee aynaan weli isgaarin si aynu aragtida hal one stop shop aynu u fulino inaynu isku soo wada xidhno dhammaan systemiska ka jira goobaha aad ka hawlgashaan oo dhan oo adeegu uu noqdo mid electronic ah oo meel kaliya laga wada helayo waa meelaha aan isleenahay gobolada marka la joogo hor socod bay u sii baahan yihiin ugu dambayn amba waxa iga horeysa baahiyaha sanadkii hore markii ay nala wadaagteen wixii miisaaniyada laga fulin karayay waxa idin yimid inta badan waaxda maamulka iyo lacagta iyo waaxda IT-ga iyo waaxda kastamada iyo cashuuraha wada socda kormeer guud soo sameeyay asasmanadii bay soo qaadeen waaranada ka dambeeyay waxaan filaynaa inay yar diireen inkastoo halkii la doonayay aanay gaarin gaar ahaan shidaalka iyo korontada meelaha qaar kood baanu 10-20% kharashaadkii 3 biloodka lagu daray laakiin sidaynu ognahay xaaladda adduunku sida u sii kordhayso iyo baahida 3 biloodadu runtii aad bay u kala tagsan yihiin taana kulli wixii laga qaban karo waa laga qabanaya insha Allah baahida sida guud waa sida wasiirka hore aan u kala qaadanay waa la ururinayaa warbixinadiina oo dhameystiran waa la isku geynayaa hawlaha wixii fulin u baahdana actions ba ka dhalan doono dib la idinku soo noqon doono la fulin doono wixii record iyo diiwaan galin u baahna saasa loo sii wadaya ugu dambayn sida xisaabiyaha guud iyo dhamaanteed aynu arkaynay fadhiinooma yaalo 5 bilood ee soo socda talooyin dhaxalgala oo 25 tala ah oo inta badan dakhliga aad culayska saarayseen ayaad nala wadaagteen kuwiina waanu ka faa'iideysanaynaa wixii kale aynu haynay qorshaha noogu jirayna waanu ku daraynaa waxa la doonayaa qof kasta oo mas'uuliyadda wasaaradda ka tirsan oo idinku hormood u tihiin oo xisaabiye iyo maamule iyo nooc walba isugu jira 5 bilood inaynu la nimaadno yani shaqo aynu ku daboolayno riboodka aynu hadda kala qaadanay dadaalkeeda iyo maskaxdeeda oo aynu gudaha aad uga hawlgallo adeeg wanaagana aynu xoojino marka hawlaha la idhaga doonaya waa kuwaas dadaalka aynu la nimaadnaa 5 bilood aynu haynaa waxa uu badbaadinayaa amba uu keenayaa oo daraskii miisaaniyadeed aynu hore u dhiganay inaynu sida normalna weyn isla ognahay 6 bilood oo dambe dakhliyadeenu way ka fiican yihiin 6 bilood ka hore haddana inagoon taa isku dhayalsanayn waxa la inaga doonayaa inaynu 3 mas'uul ee gobol wada joogaaba 7 cishaba mar intay shiraan inay isku yimaadaan wada tashadaan ka wada fikiraan ilaha dakhli ee la kordhin karo ee laga socodsiin karo marka waan dheereeyay waxa kale oo ku soo gunaanadaya waxa aynu ka wada hadlayna dib u habaynta shaqaalaha kooka haddii maamulka iyo hogaaminta goobihiina aydan wax badan ka bedelin oo fikradda iyo taladu idinku urursanaato tiirarka aynu adeegsanayna waa shaqaalaha marka talooyinka HR-ku ay wadaan ee dib u habaynta shaqaalaha ee qiimeynta iyo abaalmarinta ah iyadana inaad heer gobol laga dareemaa waa muhiim bay noo tahay dhiirigelinta shaqaalaha tilmaamida shaqaalaha la xisaabtanka shaqaalaha iyo korjoogteynta shaqaalaha iyo toosintooda oo aynu noqono hal unug oo hal ujeedo wada leh oo si fiican magaranayay hal yool leh oo si u wada hiigsanaya yoolka guud ay wada leeyihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi